السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركز برنامج كيني طبقة ورقة maanta shantii Abriil 2019 maalinimo Jimcaha waa qaybtii labaad ee barnaamijkeena oo aan maanta uga hadli doono u guuritaanka waadimigu u guurayo meeraha Mars waa meeraha ugu hadalhaynta badan marka laga tago dhulka waana meeraha ay ku mashquulsho cid kasta oo danaysta cilmiga hawada sare waxa laga sameeyay dokumentariyo aflaam iyo maqaallo aad u fara badan ma lagu noolaan jiray ma lagu noolaan karaa hadda ma loo guurayaa waa su'aalaha ugu badan ee soo darsa hay'adaha iyo culimada danaysa cilmiga hawada sare hal xiraalaha ugu weyn oo soo wajaha culimada juqraafiga ma lagu noolaan jiray ma lagu noolaan karaa mar uun madigi doona aadmigu ma leeyahay biyo waa waxyaabaha inta badan soo wajaha culimada juqraafiga iyo cid kasta oo danayso wax ka ogaanshiyaha kawaakibta iyo cilmiga hawada sare su'aalo ku soo noqdo xafiisyada wakaaladaha caalamiga ah ee daneeya arrinkaas bani aadamku ma degi doona kawkabka Mariikh amba Mars run ahaantii waxaa jira mashruuc lagu magacaabo Mars One oo ay leedahay shirkad Hollandiisa ujeedkiisuna yahay in dad la geeyo tusha Mariikha hadafka koobaad waa in 2022 la diro dayax gacmeed sida alaab waa mashruuc soo bilowday 2012 kadibna 2023 la geeyo 4 qof dabcan inta la dirin dadkaas waxa Mariikha la geyn doonaa guryo loogu talagalay ku noolaanshiyaha Mariikha dadka qaar arrinkaas waxay ku tilmaamaan arrin aan macquul ahayn marka la fiiriyo natiijooyinka xun ee ka dhalan kara arrinkaas marka koobaad waa safar aan soo noqosho lahayn yacni tagitaan kaliya oo aan wax soo noqosho ah lahayn afarta qof ee ka qayb galaya arrinkaas waxay saxiixi doonaan in ay ku dhimanayaan tusha Mariikh ayadoo ay saasi jirto malaayiin qof ayaa isdiiwaan galiyay in ay ka qayb galaan arrinkaas malaayiin kiiloomitir ayuu Mariikh dhulka u jiraa waa safar aan 7 bilood la istaagin si socod kaliya 7 bilood ayaad qol yar dhex fadhin intay wadada ku sii jiraan waxay la kulmi doonaan weeraro dhanka cirka shucaaca ee kaga imanaya cirka fog iyo hadhaaga xidigaha gaboobay waxaa macquul ah inay leefaan dabeelaha holaca wata ee qorraxdu sii deyso kuna dhintaan halkaas ayagoon gaadhin tusha Mariikh amba Mars qabrina u noqoto halkaas waxaaba laga yaabaa inay jawgigaas ayna u baran maskaxda bini'aadanku ay noqoto hawlgab oo malaayiin kiiloomitir meel dhulka ka koraysa ay Mariikhana ka sokaysa ay ku halaagsamaan haddii ay Mariikh nabad ku tagaan xaalkoodu soo noqon doonaa qalad yar oo ay garan ayaa keeni kara in ay dhintaan haddii ayna xiran qalabka loogu talagalay waxay ku dhiman doonaan halkaas oksijiintuna kaga dhamaan doontaa ama xitaa ay wadada ka baxaan oo ay ku fakadaan malaayiin kiiloomitir marka oksijiinku ka dhamaadana ay halkaas ku dhintaan haddii markii aad joogtay dhulka culayskaagu ahaa 100 kilogram markaad tagto Mars waxa uu noqon doonaa 36 kilogram maxaa yeelay Mariikh dhulka waa uu ka yar yahay kana soo jiidasho yar yahay waxay ku noolaan guriyar yar oo cayiman beero aan lahayn meel banaana iyo waxyaabo fara badan oo kale daawadayaal intaan ka bixin barnaamijka waxaan idinku wargelinayaa inay ku soo socdaan waxyaabo ku saabsan wadanka Mareykanka wararkii u dambeeyay caalamka iyo waliba warbixinooyin diblomaasiyadeed oo caalamka kala socda